maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug oo wada abaabul lagu ballaarinaya dekedda magaaladaasi ayaa dhul hor leh u qoondeeyay taabagelinta qorshaha lagu bilayo dekedda xilli injineer ka socda dalka Djibouti ay dhawaan booqdeen halkaasi duqa degmada Hobyo Cismaan Axmed Cabdulle ayaa nooga warramay dhismaha dekeddaasi iyo weliba baaxadda adeega ay bixiso. Cusmaanow imaantika ay injineeradan iskugu jira dhinacyada kala duwan sida wadooyinka iyo dekedaha waxaa ka horreeyay abaabul ay dowladda Galmudug ay sameysay oo ugu sarreeya madaxweynaha dowladda Galmudug Oktoobar dhammaadkeedii oo isugu yeeray ganacsatadii u dhalatay deegaankan hadafkeeduna uu ahaa in la horumariyo dekedda Hobyo lana dhiso deked weyn oo Soomaaliya iyo Galmudugba wax tarta. Waxaa ku xigay 9kii December oo shir weyn oo madashii dekedda lagu soo bandhigayay oo dekedda Hobyo lagu soo bandhigayay oo ka dhacay degmada Hobyo ka dhacay. Waxaa loo qorsheeyay halkaas dhulkii ay dekeddu laga dhisi lahaa oo runtii dhul aad u weyn ah 60 kilomitir oo square ah qaybta oo ah 12 kilomitir iyo 5 kilomitir oo biriga ah deked weyn oo caalami ah dhul ay yeelan karto ayaa halkaas looga qorsheeyay. Waxaa ku xigay tartankii shirkadaha ka qayb qaadan lahaa dhismaha dekedda Hobyo 9kii bishan ayaa waxaana soo gaaray wafdi ka socda shirkadda dhismaha dekedaha Djibouti iyo hay'adda dhismaha wadooyinka Djibouti halkaan ay soo gaareen. Hadda runtii waa soo dhaweynay oo waxaan soo tusnay qaybihii kala duwanaa iyo meelihii dekedda laga dhisi lahaa iyo shaqooyinkii la qaban lahaa ay tartan ku geli lahaayeen. Hawshiin hadda waxay nagu socotaa si wanaagsan. Caqabadaha hortaagan in dekedda dhismaheeda dhammaado maxaa ka mid ah? Abaabul noocaan ah weli ma dhicin. Caqabadna hadda anagu aan u joodno oo runtii dhacaysa ma aragno. Caqabadaha waxaan dhihi karnaa badankoodba waa laga soo gudbay. Maanta dadku waxay maamulka iyo dadkuba waxay diyaar u yihiin in ay deked helaan oo deked runtii horumarsan oo Soomaaliya iyo reer Galmudug iyo adduunyada wax tarta halkan laga helo. Dekedda Hobyo horta lahaanshaheeda yaala ma ganacsataa leh mid guud oo ay dalku wada leeyahay see loo leeyahay iyada horta dekedda waa deked Soomaaliyeed markii laga soo tagana de waxaa gacanta ku haya dowladda Galmudug haddana maamulkeeda iyo hawsha horumarinta dhaqaalahana waxaa dowladda u wakiilatay ganacsato. Saamiga ganacsatada imisay ku leeyihiin imisayse dowladdu leedahay? waxaa la sameeyey sharciga dekedaha dowladda Galmudug. Sharcigaas wuxuu hor yaallaa baarlamaanka inta ay soo baasgareynayaan ama ay soo xalinayaan soo gudbinayaan ayaa la sugayaa. Maxaa nooga sheegi kartaa doonyaha gubtay ee dekedda Hobyo ku gubtay ee alaabta ganacsada u siday? Doonyahaas gubtay waxa ay ku dhaceen waa iska shil weeye. Shil meel kastoo ka dhaca doonyaha ayagoo guban isbadoo la degtaa. Runtii dee doomahaas gubtay hadda waa labo sanadkii hadda lasoo dhaafay iyo sanadkanba doomaha la diiwaan geliyay. Labadaas doonna runtii xeebtana ma soo gaarin ayagoo Dubai iyo Soomaaliyaba meel u dhaxaysay ku gubteen doomahaasi. Runtiina de ganacsato Soomaaliyeed baa dhibkaas uu soo gaaray waa uga tacsiyeynayna. Waxaa runtii halkan ka socda oo shaqada doomuhu iyo dejinteedu waxay noogu dhacdaa si cajiib ay noogu socotaa sanadkan gudihiisa iyo dabayaaqada sanadkii horeba. doomaha ilaa hadda ku soo xirta waa 8 doon weeye. Alaabta dekedda ka soo degta inta badan deegaanada ay aadaan oo ay dekedda quudiso alaabteeda muhiim ay u tahay ku tiirsan waa kuwee? Guud ahaan Soomaaliya ayaa hadda la gaarsiiyaa intii gobolada dhexaba ay u badan tahay alaabaha ka soo dega Hobyo ka soo dega. Baabuurta yaryar baa u badan oo waxa soo dega ayagana waxa u gudbinaa ilaa kilinka shanaad ayay u gudbaan oo baabuurta la geeyaa. Marka ganacsiga waxaad dareemi kartaa dekedda iyadoo ay dhisnayn oo dekedda hadda noo dhisan ay tahay deked macmil ah shaqadii dekedeed xooggan aysan sameynayn in adeegeedii uu waddan kalete u gudbay. Marka waxaad dareemaysaa in halkaani ay dekedda u baahan tahay haddii deked weyn hashara deked Soomaaliya iyo reer Galmudugba iyo adduunka wadamada dariska nala ahba wax tari karta in noo doonto. kaasi wuxuu ahaa duqa degmada Hobyo Cismaan Axmed Cabdulle oo nooga warramayay dhismaha dekeddaasi lagu ballaarinayo iyo baaxadda adeegyada ay bixiso. halkaad nagala socotaana waa BBC. ka dhagaysa BBC Soomaali